السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم وناكسن يمركله كلنتي وعن وبرنامج كيني تحناها أها وأنا قلت لقلنا أسبوع والبينا مرسو قلنا هدي لها إدمنا أن جارسين دون باهيدو مركي بدت إن شاء الله مانو والبينا نسو قلنا برنامج كواحد دوبيا أما دايركتور كوالا برنامج كوا محمد يوسف وأنا ما علينا صدق روح البدن وبرنامج كان والله دياري waxaan ugu talagalnay barnaamijkan laba mowduuc inaan ka hadlo hadii ilaahay idmo mid waa barnaamij anigu hobby ii ah oo aan ku jiro oo aan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago iyo midkaan ugu talagalay dhalinyarta anigu saa la socotaan barnaamijyadeeda hore haddaad daawateen waxaan inta badan xiiseeyaa ama aan ku dhex jiraa barnaamijka loo yaqaano cryptocurrency-ga cryptocurrency marka aan leeyahay waa barnaamij runtii aad u ballaaran qof walba waqtiyo kala duwan la soo galay inkastoo anigu aan dadkii ugu horeeyay barnaamijkan soo galay aan ka mid ahay marka waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago khibradeeda iyo sida maaragtay aan isleeyahay dadka aqoonta aan idinla wadaagi doono inaad uga faa'iidi doontaan haddaan ku bilaabo horta marka koowaad aniga ma ahay qof la taliya dadka ama consultant macnaha dhaqaale ma ahay financialka waxaan idinla wadaagaya waa fikradeeda aniga iyo sidaan u arko opinion ahaan inaan idinla wadaago horta waa inaad fahamtaan qof walbo raba inuu ka qayb galo barnaamijkan adiga ayaa waxa sameyn doontaa baaritaan ku gaar ah ama dad kala taliya oo gaar ah bad kala kaashan doonta haddaad leedahay la taliyaal waa haddaad tahay ganacsade ama qof dhaqaale badan raba inuu gashto teeda labaad barnaamijkani wuxuu soo socday in ka badan 12 sano marka uu bilaabanayay wuxuu ku bilowday hal qof maanta dhaqaalihiisu wuxuu kor u dhaafay 2 trilyan suuqa guud markii la isku fiiriyo markii la yiraahdo xagga sharciyada dabcan markii hore shawxi ma aysan ahayn wax sharciyeysan laakiin hadda qaab sharci waxa soo baxay in loo aqoonsaday waxa loo yaqaan asset sida dahabka iyo ma arkaysaa waxa loo aqoonsaday waxyaabaha kala la midka ah ma arkaysaa kulay Soomaali ahaan waa waxyaabahan sida maaragtay hantida guurtada oo kale ayaa loo aqoonsaday dahabku kala kamid ah dad tusaalaha u soo qaato marka dadka wadamada jooga Yurub haddii مثلا lacag badan ka soo gasho waxaad idinka rabaa inaad cashuur wixii idinkugu leeyahay wadankaas aad joogto waa haddii aad ku dhex shaqaysato maalin walba aad gado lacagta aad account-kiina ku shubataan inaad maaragtay wixii cashuur lagugu yeesho inaad bixiso wadamo badan bay ka jirtaa Yurub wadamo yar baa jira oo aanan looga baahnayn qofka inuu cashuur ka bixiyo wixii ka soo gal dhaqaale ahaan maxaana barnaamijkan u soo qaadanaya waxay tahay waxaynu ka baranaynaa cilmiga ku jira qof kasta bini aadana fikir buu keenaa barnaamijkan waxa keenay qof la yiraahdo la socotaan Satoshi fikirkiisa maalintaas uu keenay maanta dunida dhan buu qabsaday cryptocurrency-ga waxa soo baxay in ka badan 10,000 oo shirkaduhu qaarna waa kuwa private oo wali aan suuqa imaan iyo kuwa suuqa jooga ay u kala baxaan marka qof kasto inaga mid ah waa runtii habboon tahay inaad aqoon ahaan aad ka faa'iideysatid macnaha barnaamijkan ina cilmi ahaan aad kor u qaadid cilmigaaga aqoontaada adoo baaraya dhinaca sharciyada adigoo baaraya dhinaca ma arkaysa aqoonta ku dhex jirta hamiga waxyaabaha laga leeyahay waxa kamid ah in qof kasta dunida meeshuu doon uu ka joogo sida aan emailka iskugu dirno oo kale si la mid ah inaad qofkii aad rabto inaad lacag u dirto inaad u diri karto marka shirkado badan baa haysataa aad ku isticmaali karto qof kastana waxa la rabaa meesha uu ka soo galay isaga ayaa qiyaarkiisa leh iyo dhaqaalaha uu ku darsanayo inta badan dadku waxay sameeyaan waxay ku darsadaan shirkadaha yaryar ee soo baxaya bay lacag galiyaan shirkadahaasi markii ay qiimahoodu u kor u kaco ayaa wixii markaas uga soo baxa ay dib faa'iidadoodii uga la baxaan runtii way jiraan dad badan oo maanta barnaamijyadaas kala taajiray oo hanti badan ka sameeyay dad lacag aysan weligood ku fikirin ka sameeyay intaba way jirtaa laakiin markaad soo galayso waxa ku talagashaa cryptocurrency-gu waa barnaamij riskigiisa leh oo runtii cusub dunida dhan ku cusub dawladihii ku cusub taan ina fahantaan waa muhiim marka insha Allah waxaan qaban doonaa barnaamijyo gaar ah oo aan ku sharxi doono barnaamijkaas si guud laakiin ujeedkaygu aniga wuxuu yahay in aad marka aad maaragtay dhalinyar tahay مثلا dhalinyartan si gaar ugu sameeyay barnaamijyadan qof kasta uu anfacayo uu kala bixi karaa wixii cilmi ah sababtaan ugu sameeyay dhalinyarta waxay tahay dhalinyartu waa waxa la yiraahdaa waa asad weeyaan wadan kasta waxa uu ah laf dhabarka waa dhalinyarta aqoonti maanta halkay ku dambaysaa waa dhalinyarada dadka maanta wax baranaya ee xoog leh ee mustaqbalka wax bedeli karana waa dhalinyarada marka dhalinyarada waxa laga rabaa inaad yeelatid wax loo yaqaan rich mindset maskax ma aragtay qani inaad ka tahay ma aha jeebka inaad qani ka tahay maskaxda haddii aad hodan ka tahay waad gaaraysaa
wax kasta oo aad doonayso waxaa ka mid a maalan haddii aad rabtid dabaqadaha noloshu waa dabaqado weeyaan dabaqada koowaad dabaqada labaad dabaqada saddexaad adigu haddaad dabaqadaada koowaad aad ku fikirto nolol maalmeedkaaga iyo de waxa markaas aad calooshaada ku buuxiyo keliya haddaad rabto inaad raadsato maskaxdaadii waxaad ku xirta limit meeshaas baad joogaysaa haddaad dabaqada labaad rabto inaad gaarto oo ah inaad maskaxda la timaado fikirkii tiraado waxaan rabaa wax loo yaqaano middle classka inaan noqdo qof noloshiisa yacni gaara dhaqaale fiican guri haysta uu isagu leeyahay kire laga qaadin baabuur maaragtay uu isagu kire ka bixin uu haysto joogta u ah mushaar toos uu ku soo galayo qofkaas waa middle class weeyaan haddaad rabto inaad sii dhaafto waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa dadka investorka ah boqolkiiba hal ayaa dunida waxay yihiin investor marka dadka ugu faa'iidada badan dunida oo iyagoo jiifa dhaqaalahooda u socdo waa dadka maalgashada sida hadda google-ka oo kale apple-ka oo kale microsoft-ga dadkii kambaniyaashaas markay bilowga ahaayeen fahmay maantay billions bay ka faa'iideen taasana ani ahaan sayida igu kaliftay inaan maantay barnaamijka la yiraahdo cryptocurrency-ga maadaama uu bilow yahay anigu waxaan aaminsanahay hadda ayuu bilowday inaan macnaha ka qayb galo taas waa fikirkayga gaarka ah waxyaabo badan oo la kulmina waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo positivity-ga iyo negativity-ga oo runtii aniga waan maqli jiray laakiin reality-geeda waxa weeyaan dad badan waxaad arkaysaa positive ah oo macnaha wixii ku qanacsan boqolkiiba boqol ku ah sideedoo kale iyo dad badan oo negative macnaha ka soo horjeeda marka waxaa la rabaa anaga waxaana ummatul wasad ummad dhexdhexe waxa markaad aragto inaad xaq jir noqon wixii aadan ka soo horjeesan sababtoo wixii waa cusub yihiin hal isdejiyo iyo inaadan macnaha wixiina aadan boqolkiiba boqol noqon aadan isku dhiibin inkastoo anigu xaggaas la ii jiitay laakiin sidaas darteed nolosheedii kale iyo arrimaheygii kale waan wataa laakiin waqti badan runtii waan geliyey si aan wax badan uga barto marka taasi waxaan uga baxayaa positivity-ga iyo wax la yiraahdo rich mindset-ka ma aha qosab inaad barnaamijka haddaad soo gasho aad markiiba hanti aad ka samaynayso ka taajirayso cid taas kuu garanti garan karta male laakiin haddaad runtii fahanto xilliga wax la geliyo shirkadaha la geliyo meesha u socdaan taas waxaan dhihi karnaa wax fiican dad badan oo uga soo noqday waa jiraan laakiin adiga waxaa kala kulmi doonto adigay kugu xiran tahay marka dhalinyarta waxaan rabaa insha allah sidoo kale inaan aad ugula ma arkaysaa dardaarmo waxa loo yaqaano buugaagta in la akhriyo aad bay muhiim u tahay buugaagta akhristiis mar haddaad wax badan buugaagta akhriso cilmi badan baa kaaga kordhaya dad kaa horreeyay baa shirkado soo dhisay maanta waxay soo sameeyeen kambaniyo badan qaladaad badan bay soo sameeyeen hanti badan bay uga burburtay dad baa markii la dhisayay dowladahan dunida ka jira maanta dhaqaalahan dunida ka jira qof kula mid ah waddankuu doona ha ka soo jeedo dhalinyar ah baa ku fikira runtii inuu wax isbeddela sameeyo wayna ku guulaysteen marka adi haddaad dhalinyaro tahay oo dhalinyar Soomaali tahay waa inaad tiraahdo aniga waan maskaxiyan waan u dhisanahay ma aha inaad iska riyoto waa inaad dhistid weeyaan waqti bay qaadanaysaa mesela haddaan su'aal ku soo qaato maanta markaad rabto inaad jirkaaga dhisto oo murqo la soo baxdo waad fahmaysaa waxaan ka hadlayo intee kaa qaadanaysaa maanta haddaad jiimka tagto mise isbuucan kaliya jiimka tagto mise hal bil kaliya aad jiimka tagto ood orodo biraha qaado si kastood u samayso kuguma filna laakiin markaad wixii joogto u samayso waxa loo yaqaano consistency oo la timaad waxa loo yaqaano commitment yacni si joogto ah oo isxigxigta oo waqti dheer ah weli macnaha sanado ah aad samayso miro fiican baa kaaga soo baxaya waad garanaysaan marka waa muhiim qof kastoo idinka mid ah inaad wax marka aad samaynaysaan joogtaysaan waxay doontaba ha noqoto nolosha marka buugaagta akhrintooda runtii wax badan baad ka fahmaysaan dad badanoo waxaa jira buugaagtooda runtii aad miro dhal u yahay inaad akhrisaan waa idinkula talin lahaa haddaan idiin sheego hal buug maanta maalan soo qaato oo aniga runtii shakhsiyan aan aadka ula dhacay waxaa ka mid ah oon akhriyey dhowr jeer ku celceliyey buugga la yiraahdo rich dad poor dad waa muhiim weeye ma aha keliya inaad baranayso taajirnimada iyo faqriga laakiin wax badan baa ku dhex jira cilmi badan baa ku dhex jira oo maskaxdaada wax weyn kaa bedeli doona nolol ahaan waa muhiim buugaag kaloo badan baa jira waan idinla wadaagi doonaa laakiin buuggaas geli google-ka ama raadi haddaad online-ka ka gadan karto ama meel kale aad ka soo dejisan karto waa muhiim taa markaan ka gudbo wax marka aad samaynaysid waxaa loo sameeyaa passionate aniga waxaan samaynayo waa marka koowaad iskama sameeyo wax markaan maqlo waa inaan baaritaan ku sameeyo waa inaan soo fahmo waa inaan nafteeda ku qanciyo marka nafteeda wixii ku qanacdo barnaamijkii dhex galo kadib ayaan wixii galaa laakiin si fiican baa waxa uga miro gaaraa macnaha
adigana marka waxa laga rabaa haddaad wax samaynayso inaad wixii akhriso adduunku waxay leeyihin wax la yidhaha ups and downs marmarka qaar wixii way adag tahay maalintu waa kugu adag tahay marmarka qaar wixii waa positive oo waa miro fiican baa kaaga soo baxaya laakiin marka hore haddaad waxa u samayso waxa loo yaqaano passionate inaad ku raaxaysato waxa markaad samaynayso oo habbi ku tahay hobby ku noqdaan de wixii haddii xataa maanta ay bahashu kugu kulushahay weli waxaad haysataa wixii inaad joy ahaan baa u samaynaysaa inaad wixii ku qanacsan tahay marka taasna aad bay muhiim u tahay wax walbood nolosha samaynayso haddaad u aragto inay culays kugu tahay ama aadan dhadhankeeda aadan dareemaynin aad ka fahamto iska daa laakiin haddaad wixii u samaynaysid yani waxa naftadaada raalli ka tahay aragto samee dadku waa adduunku waa ballaaran yahay taasna waa muhiim passionate inaad wixii yani adoo naftaada raalli ku ah inaad samayso waxyaabaha kale muhiimka ah oo muhiimka aan rabo inaan kala hadlo marka laga soo tago taas waxa loo yaqaan dreams dadka ma ogtahay dreamku ma aha markaad hurdo kaliya riyada aad ku riyoto taasi qarow baa ku jiri kara laakiin riyada rasmiga ah adoo soo jeeda oo fikir maskaxdaada baa waxay samayn kartaa riyo waxyaabaha ku riyoonaysa waxaa ka mid a maalan waxbaad jeclaysatay waxyaabahaas waa wax aad hamigaaga qof walba riyo gaar u leeyahay taada ila soo sheergareeya youtube-ka qof walba wixii riyadaada ay tahay ama ra'yiga programka xataa sidaad u aragto ama wixii aad jeclaan lahayd inaad idinla wadaagno waad soo gelin kartaan laakiin markaan leenahay riyada waxa weyn qofku waxa uu jecel yahay dad baa ku jecel inay ma arkaysaa hanti yeeshaan guryo qurux badan dhistaan nolosha meel fiican ka degaan dad baa jecel shaqo yaroo wanaagsan iyo meel yaroo iska degan inay iska deganaadaan oo waxoodu iska kooban yihiin qof baa jecel inuu dhankii cilmiga barto qof baa jecel dhanka diinta inuu barto dadku waa kala duwan yihiin laakiin dreamkaaga qof walba waa u gaar marka waxa adiga markaasi ku raali geliya oo jecesha inaad gaarto waa inaad kuu qoran yihiin buug inaad qaadato inaad qorato waxaa jirta waxa la yidhaha dream board baa jira boardkaasi maalan waxaa ku dhijinaysaa meesha aad mar walba aad soo toosto ama meesha waxay noqon kartaa markaad fadhiiso qolkaaga fadhiga ama meesha aad jiifanayso waa inaad wixii sawiran aad ku dhijisato ood markaas dreamkaaga ah si mar walba aad soo toosto ood u xasuusnaato hadday maalin tahay hadday tahay habeen markaad soo toosto waa inuu dreamkaagii si visual ah aragti ah inuu meel kuugu dhegan yahay oo tiraahdo okay maantii dreamkaasaan leeyahay ama riyadaasaan leeyahay waxaan ku gaarayaa inaan waxaas maanta qabto marka dadku waa kala duwan yihiin dreamkooda laakiin haddaad noqotid qof aanan lahayn riyo haddaad noqoto qof waxa uu samaynaya aan ku samaynin passionate de noloshu ma aha keliya in maaragtay la cuno la cabo keliya maaha waxaan bini aadamku sidiis wuxuu ku nool yahay waa rajo waa han waa ma arkaysaa qof walba de waxbaa ku wada nafsadaada laftirkaaga inaad mararka qaar isdhegaysato waxa kaa dhex guuxaya oo aad rabto inaad gaarto marka haddii wixii kaa dhex guuxayaan mararka waa inaad derbiga macnaha ku dhejisatid riyadaas waxa kaa kugu maaragtay niyadaada ku jira ama aad dareemayso inaad soo saartid qoratid gaartidna marka ogow wax kastoo maanta la sameeyaa ama dunidan la gaaray qof baa ku riyoonayay waxay tahay baabuur bay noqon kartaa diyaarad bay noqon kartaa waxay noqon kartaa guryahan quruxda badan dabaqyadan maalba markaad soo baxdo dunida meeshaad doontaba ka tagto quruxda badan jidadkan aad ku socotaan baabuurta ay marto qof baa fikiray su-aashu waxay tahay aan adiga ku weydiinaya marka maxaa kugu jira marka oo ku riyoonaysaa videogeyga maaha motivation videogeyga waa su-aal adiga kugu socoto qofkii daawanaya maxaa ku riyoonaysaa hadday riyadaas kugu jirto ay tahay inaad meel gaarto nolosha waqtiga aad haysato waa inaad xisaabsato maanta dhalinyaraad tahay xoog baad haysataa haddaad qaarkiin ilmo aadan lahayn ama reer ogow maanta fursad dahabi baa haysataa waxa weeyaan waqti badanoo waxaa ku qabsan karta baa ku hor yaalla hadday marka riyadaada kuu qorneen maanta waa inaad qorto qoritaan keliya ha ku ekeenin sawirkana ka qaad waxay noqon kartaa inaad hooyada xajka geyso aabbaha inaad xajka geyso $1 milyan inaad samayso maalan haddaad $1 milyan rabto inaad samayso maxaa lacag loo sameeyaa Soomaalidu inta badan waxay dhahaan aan ku kala duwanahay anagu lacag uma baahnin ilaah baa maaragtay u qabnaa marka 12 saacadood 15 saacadood inaad gaari wado ama laga yaabo sometimes ka badan waxay ka qaadanaysaa waqtigaagii marka haddaad lacag aad heli karto wada aad ku sameyn karto de waa cilmi la barto waa inaad barato sidee lacag ku sameyn karaa ma aha inaad wixii israaciso adoo waxaagii wata noloshaadii shaqadaadii wax walba aad meeshoodii ku yeelaan tan waa ku dhinacoodaysaa
waxa la yiraahdaa side baa la yiraahdaa wax lagu dhex wado nolosha caadiga ah marka ku dhex wad hamigaaga si ku gaarsiiso qoro sawiro darbiga ku dhijiso markaad lacagtii hesho milyan tusaale ahaan guri qurux badan baad ka dhisatay waalidkaaga xajka aad ka geysay saacadihii aad shaqeynaysa waqtiga ka galaha baad yareysatay meel badan oo marka waxa jirta investment la galiyo anigu waan idin sheego shakhsiyan teedan ka hadlaya ma aan inaan ku leeyahay soo gal laakiin aniga shakhsiyan cryptocurrency-ga ayaan lacagteeda geliyaa way u geliyaa sababta waxaan aaminay akhriyay waqti geliyay inay waxaan yihiin wax cusub boqolkiiba hal ama keer dadka dunida jooga fahamsan yihiin laakiin markii boqolkiiba 10 la soo gaaro hadda ayuu dhaqaalaheedu 2 trillion yahay waxaad ku dhifataa another maaragtay 10 waa 20 trillion way marka qofkii ka soo horeeyay ee barnaamijkan soo galay waa ka dhaqaale badan yahay shirkado badan baa jira 8,000 oo shirkadood qof baa shirkadani maanta markay bilaabatay galayay maalintii ka sii horeysay mid baa galayay marka ninkaasi markuu uu adigu aad soo gasho ood ka mid noqoto boqolkiiba 10 ka dambe isaga booskiisa waa sii xirtay hore u sii soconaya marka saas inaad fahantaan waa muhiim marka taas waa fikirkayga gaarka ah waa ra'yigayga laakiin adiga adaa wixii markaas aad miiska ku saaran oo rabto inaad ku gaarto laakiin ugu noloshu hal meel ma aha way balaaran tahay laakiin mar walba inay waxaaga ku cad yihiin insha Allah videoha ku xiga baa mowduuc intaan ka badan ku soo qaadan doonaa haddaad videohan daawanaysid waxaad saartaa subscribe like-gana ha ka iloobin barnaamijka hadduu aad ku qanacday daawashadiisa subscribe-kana waxaad u saaraysaa mar walba aan soo gelina barnaamijkan kuma dhaafayo qofka ugu horeeya noqonaysaa beelkana ha iloobin sidoo kale taabo waxaan idin leenahay wiig wanaagsan ama isbuuc wanaagsan meel kastoo dunida ka joogto haddaad tahay qof Soomaaliyeed ugu xubin muhiim baa tahay haddii laakiin aad dadka tustid nafsadaada tustid intaan dadka tusin ka hor qof waxtar leh oo bulshadiisa rabo inuu wax uga tago haddaad tahay miisaan gaar ba dadku yeelanaysaa taariikhda dadka waxay xusayso la xasuusto ogow waxba kuma doorin laakiin waxay la imaadeen riyadoodii iyo waxqabadkoodii naftooda ay u qabteen kadibna bulshada ay u qabteen taas darteed baa maanta lagu xusay adiguna haddaa qofkaas oo kale tahay waxa kugu jira waxaan ku dhihi lahaa hala dhimanin soo saar adigana ku qanac kadibna bulshada alla wadaagi lahayd nolosha inaa xogo bedesho samee intaasaan kusoo koobayaa waa anigoo sayid maxamed cabdi ah iyo walaalkay marna saaxiibkay maxamed oo directorka ah barnaamijka la wada yuusuf waan u mahad celinayaa dhammaantiin waqtiga aad siiseen oo aan aaminsanahay inuu waqti qaali yahay waan idinkaga mahad celinaya waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.